في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu qaadanaynaa cibaadooyinka kolba qayb ka mid ah oo aayaduhu ay nooga warramayaan fi suurati al-Baqara. cibaadadii soomka Ilaahay uu soo faray, cibaadadii xajka, cibaadadii jihaadka, cibaadadii lagu cibaadeysanayay in xaas iyo qoys iyo usra la sameeyo, cibaadadii cadiyada iyo sadaqada aynu marayna oo aayadkan soo socda ay ka waramayaan. idan waxaad arkaysaa diinta islaamku waa nidaamul xayaa, waa nidaamkii nolosha meelnaba lama rabo inay cibaado ka baxdo. ilaa 14 aayadood oo istaba yaallo soo socda ayaa waxay ka waramayaan cibaadada cadiyada ama deeqsinimada iyo waxbixinta ama infaaq iyo maalka ama faral ha ahaada ama sunni labadaba. markaynu taamul ku sameeyno fi hadhihi al-ayat shan arimood baa inooga muuqanaya. ta horeysa waxa weeye qiimaha iyo tayada ay leedahay waxbixinta Ilaahay wax la amaahinayo subhanahu wa ta'ala. waxa Ilaahay uu ku horeysiinayaa bixinta inuu wax bixinayno Ilaahay amaahino. dee Ilaahay weynaa waxa loo dhiibtay inuu yahay wax weyn. kaasa wuxuu tilmaamayaa kamathali habatin أنبتت 100 حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وحبت soo saartay naas 100 mir 700 mir intuu doonana Ilaahay waa u sii laablaabaya qofku doono. kamathali jannatin birabwa markalena Ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inuu waxaynu Ilaahay siinayno amaahinayna inuu la mid yahay beer meel wanaagsan ku taala oo aan ba'aynin oo waqti walba midhaha soo saaraysa. idan waxaynu Ilaahay amaahinayna inuu dhiibanaynaa isagoo marka hore bayna siiyay inuu yahay wax aad u qaali ah oo qiimo badan bay aayadkuna jeclaysiinayaan. marka waa mudaacafatu sadaqaat wa qiimatu sadaqa ayaa nasku ina baraya Ilaahay noo horeysiyo subhanahu wa ta'ala si qiimaha iyo tayadaasi ay u jirto. hunaaka aadaab li sadaqa sadaqadiina aadaab leedahay baa aayaduhu ayna barayaan aynu dhageysan doonaa insha Allah. aadaabtaas ilaa 4 meelahaas ay noqonayaan. waxa kamid ah aadaabtaas عدم الأذى والمن في الصدقة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. صدقدينا كبريننا با إلى هؤلاء إن قلت شيغتان وقفك أو شيغ وحي وبحي أما ودباتك الدبقى عامية خاص متكستبها أما ويستسلم الراعي صدح لا الرموت با وهذا بدر الله الراعين كرا الصدقدي ka waxa inuu daacad ahaado adiga Ilaahay idinka dhaxeeyo isla markaana aad u aragto inaad adigu uga baahantahay halkaad ku bixinayso ciidaad siinayso. hadaad miskiin siinayso ama jiha khayriya ku bixinayso baahida halkaas uu qabta mid ka badan baad adigu u qabta adaa danaysanaya. adaabta afraad waxa weeyaan saddexba halka Ilaahay uu ku sheegay waxaynu bixinaynaa inuu noqdo wax tayo leh وأن إلهي لعابيننا وحليتا أن لقهر قينين رب سبحانه وتعالى. أنفقوا من طيبات ما كسبتم بلهايلي وحش قيسين كيسا وناكسن بحية ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. بتسيدوا إلهي إنه الله وين يقانا بخيل كل هاي يقانا سبحانه وتعالى. وحب بحنا يسان وحو وناكسنها هذا بلهاي oo wax liitaha bixinina oo idinkuba hadii la idin siiyo aydan qaadateen in isku qabadun mooyaan. waxaan ilaahnaa waxa maan doonaynina wallahi in isku qabadun baa ku qaatabeen ilaahnaa in isku qabadkeeni buu Ilaahay sheegay. marka wax idinkoo indhaha isku haya mooyaan saani u qaadateen dadka la ku caabeynina baa Ilaahay. marka wixii wanaagsan ayaa wax laga bixiyaa waa aadaabtiba kamid. aadaabta waxa kamid ah waxaad bixinaysaa inuu yahay xalaal ah oo isaguna waa shay dayib ah. wala yastawi al-khabith wa tayyib waxa wanaagsan iyo waxa xumi ma sinna. marka shayga aad bixinaysaa hadduu xaraan noqdo laga aqbali maayo. in Allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Ilaahay uu xalaal buu aqbala. haddaad weligaa iyo Allah uu xaraan oo badan bixiso kuma tirsana
hantidii ummadood ka qaaday oo u noqotay un weeyi adiguna dembi un baad ku lahayd deeqduna dadkii lahaa bay gaadhay adaabta lixaad waxa weeye ataxaruru min waswaasi shayطaan shaydaanka iyo waswaaskiisa inaad ka xorowdo garbuhu ku haystaa yabaal buu kugu abuurayaa wax badan buu kuu sheegayaa markaad istiraahdo waxbix الشayطaanu yacidukum الfaqr wayaأmurukum biاlfaxshaa faxshaaga culimadu waxay ku fasireen bakhaylnimada xalla wixii xun buu ku farayaa bakhaylnimuu ku farayaa iska haysa buu leeyahay intan kumaba dheera halkan ku farsamee marka lixdaa arrimoodba waxay ka mid yihiin min aadaab الصadaqa qodobka saddexaad waxa weeye kayfiyatu adaa'i haadihi اlcibaada cibaadadan infaaqa habkaynu gudanaynaa ma si sira baynu gudanaa mise si caadahoo muuqata labada way noo bannaayin ilaahay baa wuxu uhi in tubdu sadaqaati fanicim maa hiya wain tukfuuha watu'tuuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum labadaba laakiin culimadu waxay leeyiin qeybta dambe ilaahay wuxuu raaciyey faqiir buu raaciyey ama fuqaradii sadaqada haddaa muujisaan way idin fiicanta haddaa qarisaan oo fuqaradii dadka baahan siisaanna way khayr badanta marka halkaa dambe waxaa laga fahmayaa marka faqiir iyo qof la siinayana qarintay ku fiicanta marka jiha caama iyo danguud lagu bixinayo qofkii loogu manno sheeganaynina muujintay ku fiicanta sidii nabiguba calayhi salaatu wasalaam intuu mimbarka istaaga jihaadka iyo danaha guud uu u yaboohin jiray dadku ay ugu tartami jireen laakiin qof damqanayo oo dadka iska ilaalinaya marka wax la siinayo in loo laabo ayaa ku fiican waa kayfiyatu adaa'i hadihi alcibaada labada siyoodba way bannaayin qodobka afraad ee aayaadku ay ka warramayaan waxa weeyaan masaariifu haadihi الsadaqaat waxaanaynu bixinayna meelaha lagu bixinayo waa likulli muxtaaj meel kastoo baahan baa lagu bixinaya qof kastoo baahan ama gaal ha ahaado ama islaam ama caasi ha ahaado ama caabid qofku hadduu baahan yahay gaajo lagu eegi maayo ilaa muxaaribka mooyaane qofka inala dagaalamaya cadowga mooyaane ciddii kale baahanba xataa alxayawaanaat waa la siinaya waa loogu deeqaya ilaahay baa yihi laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa aayaadkay ku jirta adiga kuma saara inaad hanuunisee wixii aad helayso unu dhiib yahuudiga dawarsanaya iyo nasraaniga iyo faqiirka iyo cid walba waa la siinaya waxba laga yaabaa in lagu soo islaamiyo qalbigooda lagu qabto lilfuqaraa'i aladiina uxsiruu fii sabiili اllah dadka iyaguna jihaadka ku kooban ee cilmiga baranaya ee khayrka u heelan iyagana ha la siiyo marka labada aayadood ee isdaba taagana waxay tilmaamayaan jihooyinka lagu bixinayo deeqda oo dadka muslimiintu waxyaabaha islaamkooda ku baahiyaan buu ka mid yahay deeqda iyo dadaalka ay ku bixinayaan xagga cadiyada sida maanta ay hay-adaha tansiirka iyo tabshiirka ama mishanka ee diinta kiristanka faafinaya dadka quluubtooda usoo jiitaan oo ay wax ugu fidiyaan halkaa waxaa ku jira hay-adaha muslimiinta iyo tujaarta muslimiinta sekadana qayb baaba loo baasgaraynayo dee la siiyeyba oo qur-aanku siiyey dadkaa mualafatu quluubum la yidhaha qalbigooda lasoo dhaweynayo qodobka u dambeeya shanaad waxa weeyaan takhiiru haadihi sadaqaat deeqdaa aynu bixinaynaa inaanay yaraanin xoolaha dad baa inala le waa laynaga dhexlayaa dadkaa inaynu la boobno inta arrinku gacanta kugu jiro ee aan lagaa dhaxlin ee aanad marti ku noqon eena dhulka hoos marin maantaad joogtaaye la boob dadka dhaxal kaloo ka gaadhsii aladiina yunfiquuna amwaalahum sira wacalaaniya falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aayadda u dambaysa dadka xoolahooda bixinaya baa ilaahay habeenkii iyo maalinba fi leyli wanahaar wasira wacalaaniya habeenkii iyo maalintii waa bixinayaan si hoose iyo si qarsoon iyo si muuqata labadaba waa bixinayaan abaalkoodu ilaahay agtiisu u yaalaa waa awliye ilaahay oo cabsi iyo muruga midna ma saara marka aayaddaa u dambaysa waxay tilmaamaysaa maalka aynu bixinayna inaanu inagu yaraanin ee sidaad ugu raaxaysanayso ee adduunka aada u bixinayso si ka badan waa inaad raaxada aakhirana ugu raadisaa idan shantaa mowduuc baynu ku soo ururin karnaa 14 aayadood qaybaha ay ka warramayaan ee infaaqan markaynu si guud u eegno aynu ta'amulaad ku samayno marka cibaadadeena iyo cilmiga aynu qaadanayno waa inaynu ku lamaanaynaa oo aynu ku lifaaqnaa cadiyada iyo deeqda iyada oo aanay shardi ahayn qofka wax bixinaya inuu wax badan hayo dadka qaarkood waxa laga yaabaa marka la yidhaahdo wax bixin inuu isdhaafiyo yidhaahdo de adiga maaha kaa loo jeedaa waa tujaarta iyo kuwa waxa badan ee buurbuuranaya sidaa ha u fahmin
nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam sabaqa dirhamun ب100,000 dirham gini baa ka dheereeya 100,000 oo gini ginigaas siduu uga dheereeya waxa weeye qof baa haysta 2 gini mid buu bixiyey midna masaariif buu la haray qofna waxaa laga yaabaa malaayiin buu haystaa 100,000 buu bixiyey kan labadii uu haystay mid bixiyey 50% buu bixiyey kan kalena waxaa laga yaabaa 100,000 inay noqdaan dee 1% 100 inay noqdaan marka waxaa laga eegayaa qadarku xoolihiisa ka bixiyey ayaa laga eegayaa 100 kala badha marka kaasaa ka dheereeyay buu leeyahay kaa kale waxa uu bixiyey kaasaa ka badiyay buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waxay u fahamsaneen qofba waxa uu wuxuu hayo inuu wax ka bixiyo inta halka istaagado waxba la siiyay waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam markii lagu dhameystiray ayuu isu diyaariyay qaybtan hadaba ana intaan bixinaya soo inta la ima siinin aniguna intaan haatan bixinaya war iska haysabaa imikaaba lagu ururiyay bal ku asturna oo naga joog marka sidaasay tahay dhalinyarada iyo dadka aan waxba hayn qof waliba wixii uu helayo inuu wax ka bixiyo noocyada kala duwan ee Ilaahay ugu deeqay waana shukriga la xusayo quraanku aad inoogu waaniyo qayb kamida weeye inaad ficil iyo qowl kula timaado oo shukrigu maaha alxamdulillah iyo wardigo kaliya aad badisee waa shukriga gacanta aad muhiima iyo shukriga qowlka iyo shukriga ficilka icmalu ala daawud shukran amal baa la doonayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته